بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء الله هوس حتى والد شوقا وعنا الرياضيات وحي وين حرب يا حاين لكن وعينيهن ماموركا وولادكا عدو الماشي أي شوقته يعني يضمن الماشي متقيع يسوي درسي يسوي صبح ويوم تسلام وماموركا الله سلايو وتصوف قرعيا أيضا عدد deegaan kiina joogaan waxayna leeyihiin maamul goboleedkii Shabeelle Isteeg ayaa laga samaynayaa meeshaan iyagii jooga dadkii Soomaaliyeed deganaa deegaanka cid loo diidayo lama arko haddee in lagu aqbalo oo dadka ay heshiiyo oo xabadda la iska dhigo oo wanaag iyo sharaf iyo karaamo lagu heshiiyo oo wax la wada dhisto oo deganaan iyo magaranaysa heshiis ugu wada socdo intaasaan soo jeedinaynaa Shabeellaha Hoose nimanka jooga saasay diyaar u yihiin magaran waa garta marka Shabeellaha Hoose dawladdu waxay u aqoonsatay maamulka xaruntiisu Baydhabo ay tahay saddexda gobol dawladda waa bini'aadam weeye bini'aadamku ama waa saxan yahay ama waa qaldan yahay deegaanka dadkii lahaa oo deganaa oo ilaahay makaniyey asagoo jooga adiga waa laga qaaday oo qolo kale la siiyey oo deegaanka dadkii deganaa iyo hantidiisii iyo daarihiisii iyo dalkii ilaahay u hantay adiga waa laga wareejiyey dad kale la siiyey dawladda ay tiraahdo xaq maahan dawladna kuma ahan ilaahayna raalli kuma ahan dadkuna ku raalli noqon maayo dhaqanka saas ah waxa weeye maamul goboleedka deegaanka dadka degan inuu heshiiyo oo ku heshiiyo oo dhisto oo markuu dhisto ku dhawaaqo dawladda ay ku heshiiyo ay dadka degan heshiiyo dawladda ay tiraahdo waa ku gacan sidoo aqoonsato saas ah habaa deegaan bad leeyahay oo u badan yahay inay yidhaahdaan waa ka dhaadno qolo kale taa ku biirin oo wareejinay dawladda xaq uma ahan inay yeesho xalna uma ahan marka haddee dadka degan oo beelaha wiye oo boqolkiiba 80 oo Shabeellaha Hoose degan taageerin bay mudan yihiin in la afsay mudan yihiin qaybtooda inay ka qaataan bay mudan yihiin dadka kale degan in qaybtooda ay qaataan bay mudan yihiin sidaas in lagu dhiso laba Shabeelle iyo Banaadir waxaa la oran jiray Banaadir baa la oran jiray waxaa la Banaadir waa magaalada caasimada Soomaaliyeed baa lagu sheegay labada Shabeelle marka saasay u kala maarmeen deegaanka dadkii degan waa la yaqaanaa hada dawladdu cadaalad ilaahay ka fogaan dadkana isku diray sidaas leeyahay magaran Axmed Diiriye odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka adinku adaatiin dawladda federaalka ma idin kala tashatay heshiiskii lagu aqoonsaday maamulka saddexda gobol oo Shabeellaha Hoose Baydhabo lagu hoosgeeyay anigu ma garanayo ma jiro taas mana ogi lagama tashan haddii saa la yeelaa xaqba maaha xaqba insaa la yeelaa waxa weeye isku dir iyo dadka in la isku diro oo la isku afeeyo oo cid walba dagaal la geliyo taasaan u arkaya maxaa yeelay hantidii uu asagu lahaa iyo deegaankiisii ninkii la yidhaha lagala fisamaayo dadkala loo meediyey dagaal inuu qaado wax kan uga sokeeya lama arko marka dawladdu iyo dadka isku dirin dagaal la qaado oo la isugu jabayay horseedii dawlad xalaala oo dadka u dhaxaysa ha noqoto deegaanka ayadu intayan dadkaasina waxaan siinay baya boqol baa siinay ha aragto ha dhex marto sarfayn ha u dirto dadka degan ha aragto waradu yaatiin ha yidhaahdeen dadkaan hawiyaha wuxuu qabaa boqolkiiba 80 inuu degan yahay dal hawiyaha ay tahay deegaanka meesha la yidhaahdo Shabeellaha Hoose ha mareen ha ogaadeen haddii ay magaranaysaa sidaas noqoto ciddii u badan hadday diil iyo hadaa la kuuriyo mirisle ay u badan yihiin hawiya waa laga reebayaa hadaa la kuuriyo loo raro baya bakood haddii ay u badan yihiin digil iyo hawiya u badan yihiin iyagaa dhistay iyagaana degan loo daayo iyo dadka kale la degan qof waliba qaybtiisa ha qaato sidaasaa la leeyahay xagee cadaalad intaas ka badan lagu arkaya yaa diidayo intaas yeeli maayo adaan tan ugu dhaca codka loo geynaya maxay tahay waxaas hal arko dadka degan dawladda inadii
diidi maayo waa dawladdii haata dawlad kale dadkaa loo hayo ayada u dawlada haddee cadaalad waa inay hoggaan ku ahaata cadaalad cidna inay u horaacdna u dhaqaan cadaalad horta labada hoggaan u dhaxaysa inay noqdaan meesha la yidhaahdo shabeellaha hoose digig iyo hawiye haddii iyo ciddii kale la degan waa in lagu saleeyaa dhismaheeda iyo qaybteeda in lagu saleeyo wey laakiin aan meel kale loo rarin sidaas ayaan ku talinaynaa haddaana odayaasha beelaha hawiye ma garata waa gartay mas-uuliyiinta maamulka Shabeelle State waxa ay sheegeen in magaalada Marko iyagu ay xukumaan oo ay ku sugan yihiin maamulka koonfur galbeed oo xaruntiisu Baydhabo taana waxa ay sheegeen in gobolka iyagu hoos imaanayo oo Baydhabo ay ka xukumayaan isla markaana ay ka baxaan arinta marka maxaa ka imaan kara arinta waxa ka imaan kara haddii garsoor la waayo oo garsoor cadaalad la waayo dagaal baa ka imaan kara laakiin garsoor cadaalad waa in la helo dawladda garsoor cadaalad noqoto والدولة قصور عدالة الموالين هدول عليها ومضى اسكو دليلنا ورديغان كسيدي اللوجو وعركة ورديغني هوية نوكا ليلة دين لوغا بديهي هوية برغد وقاف حوايا برغد ما كررينا حضي يجبو بديهينا وداية مامل كودا يجبو حدلشتين وداية هدول ماشي إدقنتاي وقبرنتاي كنت أجلي سيدة ما سيدة ودقعي تصوفها maamul goboleedka federaalka uu dhigayo laakiin gobol baa ka raacno dadkii deganaa iyo hantidiisa iyo deegaankiisa oo raafo ayaan gobolka u dhigaynaa ha laga daayo waxaas maahan cadaaladna maahan xaqna maahan wax dadku yeelayana maahan ummadan ha ogaadeen inta ayagu ay ka tali karaan inta sabab haysta mooye ha u direen shalfin ha u direen ha arkeen dadka deegaankiisa iyo gurihiisa iyo suuq degan yahay iyo geela ka soofaya iyo laba ku xaraysan iyo xoolaha ka soofaya iyo daaraha ku yaal iyo asadooyinka ku yaal iyo sida loo degan yahay ha arkeen cadaaladda casabeeya haddii aan looda leeyahay oo ummadda isku dirin dadkaani dad dagaal awal soo dhameeyo wey hambaa wey hambadaas hadda soomaaliya dawladdu isku dirin oo isku dhammayn cadaalad ilaahay dawladda ku ahaadeen lama diidana dawlad la qaadacsan inay noqdaan baa la rabaa ayadaan kula talinayna mucaarad iyo farugtaag ma rabno xaqdarro inay ayagu hoggaan ku yihiinna ma rabno sidaa aadan cadaalad baan rabaa dawladda xaggii ka aadan cadaaladaas iyaga soorta waa gartay nabadoon Axmed Diiriye Cali bal waxaad ka warbixisaa oo aad ka warantaa dadaaladii lagu doonayay sameynta maamul ay yeeshaan gobolada dhexe ee Soomaaliya gobolada maamul ay yeeshaan dadka jooga diyaar buu yahay waa loo gobol xarayaa waa la soo dhaweynayaa cid waliba waxay tiri waa soo dhaweynaynaa waan u baahanahay waan rabnaa waa loo diyaar garoobay أنا وعند قولنا نحن شوقا حرني حبان حبتي ذكور قضاء ذكر كلام ترى وحراي قسوا بربع قسوا جاري كل جود رأي أكل عرلاين ويوحي قضاء معمول إلا نصو وذكر الإسمي ماله وقولنا بدل الله واللي يشيو ومعمول نصو وديجان كي يدرك سمايو فنو الغرال مقدام كل مدوب التعسيب